haddeertaan waxyaabaha maalin kasta marka la soo kaco la qabto waa mid ka mid inay caalamiitada ku jirto caalamiitadana ma ka dhigno midii oo la bararayo ma ka dhigno waxaa ka dhignaa midda xoogaa caafimaadka lagu ilaaliyo midda kale bal waxaa rabaa inaan kuydiyo some people waxay dhahaan heesaha waqtigee ugu fiican qori waana ogtaa waqtiga tahay ugu macaan tahay whole day maalintii habeenku ugu macaan tahay actually heesta horta markaa joognay Africa oo heesaha qori jiray iyo markaa inta joogato tolay labay kala tahay marka Africa joogay heesaha qoray waa ogtahay xaafada ku qori jiray xaafada waqtiga qaadi jiray ku bashaali jirnay dan ya waqtiga ugu macdaa wax qori habeenkii habeenkii jirtay laakiin hadda sidii maaha hadda markaa inta joogo guriga markaa joogo badanaa wax ma qoro studio taga studio gudihiisa aniga ku jira music dhageysanaya aan isku dayana wax ku xariiqo soo waqti dhan ma siiyo nice sagar ma subaxda xataa laba ku tabiinaysan marka soo kacaysan wallahi bilaa ku caawisan jir saaxiib laakiin hadda kor waxa xalta waxdu waa melody macaan leh والله bro laakiin waqti guri kula ka soo horjeeda meel happy school guri ka soo horjeeda nowadays I'm building a house والله بلا صاحب وقتياشا nolosha hadii dib ii celinayo waqtiyaasha aan jeclaa inaan ka faa'iideysto laakiin dib hadii ii celiyana fankaas ka dhaafi lahayn mugti hadii dib ii celiyo fanaan waxa قليل عادي تاعي ما دام long time بس سنواتي هل قبل ولي من سمت أخو رتيرو كذا لا شيء بس وين صومرتي قبل اسمع عيدنا واحد اللي يجري ماريا بس نقوى بس هدارتين ماريا ستوري ذي إن أوجاتينا لو ما بحنا إلا إذن شاقو يوتيوب تجا وحكو قرتين دوري بيت يجري ليل قليل ماريا كدينا كده وتجسي 2014 كمان 17 I don't know bro أنا مسكحة أساس لما وحسست but ومرينا حلقي واحد على شكل جنة ربع وقت الرباعي أنا كوا حسست كده يا محمد هاي oh really okay I love it أنا وحكي له producer you know the way he does our musicals who some it's good out أنا good job our cinema فيديو واحد مشهور كريا بانك كلينس واحد جريس وحرمنا فنانين بدنا صاين كرينا that's cool young people or dhalinyaro Soomaaliyeed waa loo baahan that's good dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waa loo baahan yahay laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed talentigooda si lagu xusho aad bay u adag tahay qofka bini'aadamka talentigiisa lagu xusho whoever deserve qof walba u qalmo lama xaqiraysi anigana wadada uga leexanayna dawil kama naga qaadanaa wallahi whoever deserve waqtigiisa wala siinaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa shaqadeena waaye yo adiga marka dhankaaga u soo jeesto heestan muxuu ahay sheeg yaa isgaaray yaa produce garay heesta yaa isgaaray yaa produce garay producer Jack kala dhaha remember heestan Bazukizo can produce garay waaye and then waxa ku kulanay adiga ku director ay baraan and that's how we met sasa ku kulanay heestii ugu horeysay ii sameeyay yaa isgaaray bro that nigga la shaqeysid waa si fiican u la shaqeysid that nigga is good mo would you say yeah he's good bro ina la shaqeysid waa actually hadda la shaqeynayna aniga ogta xadooba aqana producer kana xada luuqa u soo marata producer waa xada hal dhiga ugu sheegay and that's nice Muhammad that's cool yeah dadka su'aalaha commentayaasha inaad fursad siino waa ayagana si su'aaladu noo weydiiyaan inta su'aal waxa u jeedaa waxa ku weydiina wiil dhalinyaro ah oo raba inuu noqdo fanaan waxa kula talin lahayd fanaan noqdo that hadda waxa arkaysiin hoos ugu soo qoray commentayaasha hoos ugu soo qoray dooni weydiiya la isoo qoraya waxaana fiican dadkaaga inay su'aalaha ku soo qoraan aniga dadkayga su'aalaha isoo qoraan yaraantii ilaa intee teenage
I don't know waxa lagu dhaho qof dhalinyaro hadda kara balak barashadiisana muxuu tahay is good haduu labadooda isku keen karana ayadan ma 20 jir la soo qoray 20 years ago that's a grown man nin weyn wax ka sabay laaban ana markaa bilaabeen ugu 19 20 markaa bilaabeen 19 maana jirna suuq 20 zaid 20 se ku nora I remember that inta isku inna baxano Uganda show u aadan la dhigi jiray waa yartiin ma duuli kartiin yeah we were young up there yeah laakiin hada ugu wada dad tiin ajirto waa yartaa ma duuli karto lagu ma dhigi karo so waxaan dad tiin sayda u yareen waqtigaas lafteena booday oo ina wax shukaasano qatarna loo noqono waa jeclay لكن الرياليتي كما كان بالسهل او يرى but alhamdulillah now we all enough more